wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waraysi gaar ah siiyay TV-ga Galmudug waxa uu kaga hadlay dhawaan shirweynihii culimada Soomaaliyeed oo muddo 3 maalin ka socday magaalada Muqdisho ka uu furay madaxweynaha dalka Soomaaliya shirka oo ku soo gabagaboway magaalada Muqdisho ayaa waxa qaadacay dowlad goboleedka Galmudug kadib markii dowladda dhexe gaar ahaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda dhexe oo casuumay wafdi kale waxa uuna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ka codsaday inay tilaabo ka qaadaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda dhexe shirkaas wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta Soomaaliya ayaa nagu casuumtay si rasmi ah ayay noo infayd garayday waxauna furmaayay 22 bisha afaraad waana aan tagnay markii aan tagnay ayaan ku aragnay arrin qalad ah oo aan u aragnay inaysan haykalka maamul iyo kan maqaamka wasaaradaba u qaadmin sababtaas ayaa waxay kaliftay shirkaas inaan banaanka ka tagno aan ka baxno maxay tahay marka waxyaabaha aad ka cabanayseen oona haykal ahaan iyo idin qaadmin hadaan tihiin maamul goboleedka Galmudug maashi markii aan tagnay waxaan oo shirkii oo wax yar socdo daqiiqada ah waxaan ka war helnay dad shakhsiyaad ah oo magacii wasaaradda ku casuuman oo delegation iyo wafdi wata oo ayaguna shirkii participation ku sameeynayo fadhiya markii intaas aan aragnay ka wasaarad ahaan markiiba waxaan hor dhignay wasaaradda oo dhahnay arrintan waxaan rabnaa inaad ka joojisaan oo meesha ka saartaan waa qalad mana gali karto sidaas oo kale xubnaha ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxtooyada ayaan ku wargelinay iyagana intuba markii la iswarsaday waxay markaas wasaaradda ka dalbadeen inay joojiso oo maaragtay xafiiska prime ministerku si toos ah wuxuu cadeeyay wasiirka wasaaradda awqaafta Galmudug waa aqoonsanahay madaxweyne xaafi xukuumaddiisa waa aqoonsanahay wasaaraddii markii la hor dhigay nasiib darro si cad ayay dhagaha uga furaysatay inay ka saarto xubnaha shirka waxaana u qaadanay inay tahay in inta wasaaraddu qayb kamid ah shakhsiyaadka shacabka kamid ah soo kaxayso shaar u geliso ay siinayso xaq aysan lahayn ayadoo dadka Galmudug iyo dawladooda iska hor keenayda sababtaas markii ay dhacdana banaanka ayaan ka tagnay shirka waxaana qaadanay inaan qodobo muhiim ah oo ay ugu horeyso in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya wada shaqayntii aan la lahaynay aan hakad gelino ilaa iyo inta la saxayo qaladkii wasaaradda ka dhacay ayna ka bixinayso apologies iyo raali gelin rasmiya sidaas oo kale waxaan qaadanay inaan oon rabaa inaan idin la wadaago inaan dawladda Soomaaliya ugu baaqo gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ah meesha laga jeegaraynayo golaha wasiirada iyo wasaaradaha guud ahaan goob joogna u ahay xog ogaalna u ahay qaladkii wasaaraddu ay ku kacday oo ay u geysatay dowlad goboleedka Galmudug inay tilaabo ka qaadaan arrintaas maadaama ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xasan Cali Khayre uu sheegay hanaanka daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxa wasaaraddu ay ku kacdana ay yihiin wax karakter iyo calaamaadkii musuqa leh waxaan rajaynaynaa inay jawaab munaasab ah oo u qaadanta oo u qalanta inay ka bixiyaan biidnillaahi albaari مصطفى عبدي قابو مصطفى كرامة TV-ga Galmudug magaalada Muqdisho